meesha ganacsigeeda ugu imaaday markaasuu gaari soo istaajiyay taagan markaasuu dafay gaarigii la galay ka hor maxaa dhex maray intuu ninka naag oo gabadha u dafin maxaa dhex maray ka hor xariiru ka rabay xariirkay ka diiday sida iisha xariirkay ka diiday markaasuu intaasoo habeen bariyu soo caynayay soo qoqoray way sheegaysa iska daan ku iri marka dambe uu imaaday gaari baa la furay gabadha lagu jiitanay iyadoo goobteeda shaqada joogto meesha shaqada joogto 5 ku jiitaa ilaa 8 ka qalinaysa telefoonka ka dhumay wixii dhan ka halaabay dirci uu ku jeexay gabadhi xarbi uu la galay kii darawalkii uu la caray inta ku istaajin lahayn inta yeelay waa nin kala laba nin ay ahaayeen yaa videoga ana TikTok-na waan ku arkay iyagoo ninkii labada nin iyagoo la garaacayo oo gaariga lagu jibnaa TikTok ku arkay gaariga markuu ila carray ilaa 8 markuu dhaafiyo oo dadkii ka daba digeen markay meesha taagneen wiilasha la taagnaa wiilashii way ka daba galeen meesha looga daba tagay to alifka waa laga soo waday gabadhii jaam uu galay oo horta ma istaagi lahayn waaran jaamka dhexdiisa marka looga soo faa'iideystay laga soo qabtay kii kale uu carray halkan taagnaa laga soo qabtay gabadha meeqa saddex habeen ay xiran tahay marka maxaad leedahay Soomaalida ma daawanayso gabadheedii hadda kootini baa la saaray kootini waxay dhaheen gabadhan dad ay dishay sidaan arkayno oo marka waxaan nin iskari ninkan keensaday ninka iskariga marka afgambi gabadhiina sameeyay anaga waxa soo filanana danaynayna mana filanaynin gabadheed waxa la yiri kootini la saaray 1 milyan oo lacag ama log buu la rabaa صح أنا ما أولي ومساكين بناقص كشغل فتان أهل